Ma qiyaasi kartaa inaad tahay geesiga ugu weyn ee magaalada, laakiin subaxdii xigtay aad noqoto qofka loogu neceb yahay adduunka? Tani waa sheekadii Luis Figo, ninkii hal habeen gudaheed ku beddeshay maaliyadda kooxda ay isku dhiigga yihiin ee Barcelona, iskuna rogay cadowga koowaad ee Catalonia. Maxaa sababay in garoonka dhexdiisa loogu soo tuuro madax doonfaar oo la gowracay? Haddaba daawade, nala joog ilaa dhammaadka muuqaalka. Waxaan si faahfaahsan u soo bandhigi doonaa silsiladii dhacdooyinka ee Luis Figo ka dhigay cadowga koowaad ee garoonka Camp Nou. Hase yeeshee, is-xasuusin, haddii aad horey noola joogtay, like saar muuqaalkan. Haddii aad nagu cusub tahayna, subscribe noo saar. Mahadsanid. Aan u sii gudgalno muuqaalkeena. Ka hor inta aanay dhicin musiibadii qarniga sanadkii 2000, Luis Figo wuxuu Barcelona u ahaa wax kasta. Wuxuu ahaa kabtanka garoonka dhexdiisa ku dhiigbaxa, ninka guusha u horseeda, iyo laf-dhabarta kooxda. Magaalada Barcelona oo dhan ayaa jacayl xad dhaaf ah u muujin jirtay, laakiin jacaylkaas qotada dheer leh waxa uu isu beddelay hal habeen gudaheed oo uu qorsheeyay nin ganacsade ah oo lagu magacaabo Florentino Perez. Perez, oo markaas u taagnaa xilka madaxweynaha ee Real Madrid, ayaa lahaa hal ujeedo oo kaliya. Waxa uu doonayay inuu gilgilo saaxadda kubadda cagta, isagoo keenaya xiddiga ugu weyn cadowgooda koowaad ee Barcelona. Wuxuu xiriir qarsoodi ah la sameeyay wakiilka Figo ee lagu magacaabay Josep Vega. Perez wuxuu miiska u soo saaray heshiis waali ah. Haddii uu ku guuleysto doorashada Madrid, Figo wuxuu u wareegayaa Bernabeu, isagoo helaya mushaar 3 laab ah kan Barcelona uu ka qaato, iyo lacag horumaris ah oo gaaraysay 1.6 milyan. Figo iyo wakiilkiisa waxay u haysteen in Perez uu ku guuldareysan doono doorashada, maadaama madaxweynihii markaas ee Madrid, Lorenzo Sanz, uu kula guuleystay kooxda Champions League. Sidaa darteed, Luis Figo iyo wakiilkiisa Josep Vega waxay u arkeen fursad ay lacag bilaash ah ku heli karaan, kadibna qandaraaskaas ay cadaadis ku saaraan maamulka Barcelona si loogu kordhiyo mushaarka. Laakiin waxay ku dhaceen dabinkii ugu weynaa ee taariikhda. Markii ay saxaafaddu ogaatay heshiiskii qarsoodiga ahaa, taageerayaasha Barcelona oo naxsan ayaa bilaabay inay su'aalo weydiiyaan geesigooda. Figo, si uu u qaboojiyo carada taageerayaasha, waxa uu soo saaray bayaan fagaare ah, isagoo yidhi, "Waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo taageerayaasha madowga iyo caddaanka ah ee Barcelona in Luis Figo uu xirnaan doono maaliyadda kooxda ilaa xilli ciyaareedka soo socda, kumana waalni ixtiraam daro aan ugu biiro Real Madrid." Tani waxay taageerayaasha ka dhigtay inay si buuxda u aaminaan. Laakiin Perez wuxuu ahaa mid ka caqli badan xiddiga reer Portugal. Wuxuu isticmaalay ballantii Figo si uu u guuleysto doorashada Madrid. Qodob ka mid ah heshiiskii qarsoodiga ahaa oo ay kala saxiixdeen labadooda ayaa waxa uu dhigayay in haddii Figo uu buriyo heshiiska, uu bixinayo ganaax lacageed oo gaarayay 19 milyan. Lacagtaas oo Perez uu ballan qaaday inuu ku iibin doono tikidhada xilli ciyaareedka ee taageerayaasha Real Madrid haddii Figo imaan waayo kooxda. Perez waxa uu ku guuleystay doorashadii madaxweynenimo. Figo waqtigaas wuxuu ogaaday inuu ku jiro xabsi dahab ah. Wuxuu ka codsaday madaxweynihii Barcelona ee xilligaas, Joan Gaspart, inuu bixiyo lacagtaas ganaaxa ah si uu u badbaadiyo. Laakiin madaxweyne Gaspart wuxuu si cad u diiday inuu bixiyo lacagtaas si uu u badbaadiyo Figo. Hase yeeshee, taariikhdu markay ahayd 24 Julaay 2000, Real Madrid waxay bixisay lacagtii lagu burburinayay qandaraaska Figo oo ahayd 38 milyan, oo markaas ahayd lacagtii ugu badneed abid ee ciyaaryahan lagu iibsado. Figo waxaa la horkeenay saxaafadda isagoo xiran maaliyadda cad ee Real Madrid, wejigiisana waxaa laga dhex akhrisan karay naxdin iyo qoomamo. Bishii Oktoobar 2000, 3 bilood kadib, Figo wuxuu dib ugu soo laabtay Camp Nou, laakiin markaan wuxuu xirnaa maaliyadda cad ee cadowga. Jabi ahaan, garoonku ma ahayn meel kubad lagu ciyaaro, wuxuu ahaa aag dagaal. In ka badan 98,000 oo taageerayaal ah ayaa soo saarayay sawaxan gaarayay 112 decibels oo gilgilay garoonka, oo u dhigmay guuxa diyaarad weyn oo dhegahaaga agtooda ka kacaysa. Taageerayaasha Barcelona ayaa watay boorar ay ku qoran yihiin Yuda, oo micnaheedu yahay
khiyaanoole. Markasta oo uu Figo taabto kubadda, garoonka oo dhan ayaa ku oorinayay. 2 sano kadib, bishii Noofembar 2002, nacaybkii reer Catalonia ay u qabeen Figo wuxuu gaaray heerkii ugu sarreeyay. Figo wuxuu go'aansaday inuu laado laadadka koornada ee kooxda Real Madrid. Kadib, taageerayaasha Barcelona ayaa ku soo tuuray walxo kala duwan sida baaruud daqiiqa bixisa, dhalooyinka khamriga, iyo madax doonfaar oo la gowracay. Sawirka madax doonfaar ee agyaala cagaha Figo wuxuu noqday astaanta rasmiga ah ee nacaybka El Clasico. Ciyaartaasna waxaa la joojiyay muddo 16 daqiiqo ah nabadgelyada ciyaaryahanka darteed. Khilaafkaas wuxuu reebay nabar aan weligiis bogsan doonin Barcelona dhexdeeda. Figo waxaa laga dhigay qof aad looga neceb yahay. Magaciisa iyo sawiradiisa waxaa laga tirtiray dhammaan matxafyada kooxda, waxaana weli loo arkaa khiyaanadii ugu weyneed ee taariikhda isboortiga. Saxiixa Figo wuxuu ahaa dhagax dhigii koowaad ee mashruuca caanka ah ee Galacticos ee Florentino Perez. Sanadihii xigay waxaa ku soo biiray kooxda Real Madrid Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, iyo David Beckham, taasoo Real Madrid ka dhigtay kooxda ugu caansan dhanka ganacsiga adduunka. Wixii ka dambeeyay dhacdadii Figo, suuqa kala iibsiga tooska ah ee u dhexeeyay Barcelona iyo Real Madrid wuxuu noqday wax aad dhif u ah ama xitaa aan macquul ahayn, waayo ciyaartoydu waxay ka baqayeen dhibaatada iyo nacaybka shakhsiyadeed ee ka dhalan kara tallaabadaas. Luis Figo, inkasta oo uu cadaadis xooggan kala kulmay dhanka taageerayaasha Barca, haddana wuxuu Real Madrid kula guuleystay 2 horyaal oo La Liga ah iyo 1 Champions League. Sidoo kale wuxuu isla sanadkii 2000 ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or, taasoo muujisay in saameynta garoonka dibaddiisa aysan baabi'in tayadiisii ciyaareed. Haddaba saaxiibayaal, waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii. Luis Figo wuxuu Real Madrid ka helay koobab iyo lacag, laakiin wuxuu lumiyay wax aan la iibsan karin oo ah jacaylkii iyo ixtiraamkii malaayiin taageerayaal ah uu ka helayay. Habeenkii madax doonfaarka lagu soo tuuray wuxuu astaan u noqday in kubadda cagtu aysan ahayn kaliya ganacsi oo ay tahay dareen iyo sharaf. Haddaba saaxiibayaal, waxaa intii noogu eg khilaafkii dhex maray Luis Figo iyo taageerayaasha Barcelona. Intaan ku kulmi doono muuqaal kan la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.